السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعاني ونكسن دمان داوديش قيمها شرفت له idilhantiin بكسو dhawaada taxana la magac baxay mashruuca la dagaalanka nuurka. fadlan hadii aad nagu cusubtahay channelka subscribe rukumo oo asxaabtaada la wadaagsiina share garay riixna gambaleelka meesha sare kaaga muuqdo si aad ula socoto waxyaabaha mar walba meeshan soo dhigno. ujeedada aan kula wadaagayna barnaamijkan ayaa waxay tahay inaad wax ka ogaato damaca mas'uuliyadda kale ee dhulka Soomaalida iyo sida loo doonayo in la burburiyo diintaada iyo dhaqankaaga. waxaan safar gaaban ku imid magaalada London anigoo u socda xaflad aroos oo ehelkayga ah. saddex cisho markaan joogay ayuu ila soo hadlay nin ka tirsan urur ka mid ah kuwa sida qarsoon u shaqeeya. wuxuu ugu ballamiyay maqaaxi ku taala South Kensington oo la yiraahdo Gales Bakery. waan imid anigoo warwariyay ugu jiro isweydiinay waxa uu iga rabo. markaan cabaar meeshii fadhiyay oo bun iyo macmacaan yar ku cunay ee aan kolba saacad hoos ka eegaya waxaa si kadis ah ii soo dul istaagay nin cad. wuxuu ii sheegay in la ii soo diray oo uu ii qaadayo hodheel. waan soo raacay gaarigii oo wuxuu i keenay hodheelka Riverbank Bambalaas oo ku yaalo bartamaha magaalada London. qof baa isii taagnaa albaabka oo si diiran iigu soo dhaweeyay hodheelka. wuxuu ii kaxeeyay qol ay ku qoran tahay tirada 322. qolkii markii aan soo galay waxaa sariirta dul saaran suud madow, shaar madow iyo kabo madow. sidii la ii tilmaamay dharkii madooba ayaan ku labistay. cabaar markii aan daawaday London Eye oo toos ugu beegan daaqada qolka aan ku jiro. London Eye waa meel kamid ah meelaha ugu bilicsan magaalada London. dalxiisyaal badanna waa joogaan. gobolku sii dhacaya weli anna waxaan taaganahay daaqada albaabka. garaac xoogan ayaa albaabka lagu soo tumay laakiin haddana isla markiiba waa laga furay. anoo yaaban ayuu ugu yiri mudana waxaa bilaabanaysa soo dhaweyntaadii. waan soo raacay. wuxuu fadhiisiyay miis ay maro madow ku sharaxan tahay. dhammaan shaqaaluhuna waxay ku labisan yihiin dhar madow. miiska waxaa saaran qamri cas, waraaq saddex xagalka u taal oo ay ku qoran tahay Welcome to the Brotherhood. sidoo kale waxaa taala hees magaceedu yahay Welcome Home. markiiba gabar dhar madow siiyata ayaa masraxa soo fuushay. waxaabay qaadaysaa heesta miraheedu ay miiskayga saaran yihiin. waxaa ka mid ahaa ereyada heesta Never Seems to Change. heeskaas oo ilaab qaaday misna cabsi ugu abuuray. ayuu mid madow ii yimid asagoo madaxa hoos u fooririnaya. ayuu ugu yiri mudane waa ku diyaar gaarigii ku qaadi lahaa. dabaqa hoose ee hodheelka ayaa la igeeyey. waxaaba isugayaba gaari kala jiidhan. fadlan la soco qaybta labaad ee barnaamijka.